halkan waxaa idinka soo diyaarinaynaa ninkan oo sameynayo meel oo keema doo yimid oo dhulka saafada u qoday ayaa wuxuu dhigayaa shamido iyo caras ku qasiyay oo meesha marinaya tubooyin oo gelinaya dabadeed wuxuu sameynayaa jaranjarooyin iyo waxyaabo kale oo hadana meesha ka dhisaya ujeedada uu leeyahay waxa waaye meel oo biyo xiran inuu sameeyo marka hawaaye ninkan kaligiis wuxuu sameynayo waxa waaye dawlad dhan waxay sameeysay oo kaligiis sameynaya waa in yaro gaaban hadda ninkan wuxuu sameynayo dawladda Itoobiya biyo xiranka sameysay waxa waaye dhowr sano socotay iyo dhaqaale xoog la galay ninkan mariyar oo macnaha aad u yaro asii sameeyay oo hadana wuxuu rabaa inuu biyo xiran oo ka sameeyo waxa waaye waa arin cajiib ah marka waxa waaye si aad u fiirso biyo xiranka dhismihiisa waa iska fudud yahay marka waxa waaye dunida waa horumartay sababta waxa waaye heer waxa la marooyaa biyaha laga dhaliyo koronto ninkan kaligiis oo qof labaysa aan jirin marka laga reebo kaameramanka oo kaamirada hayo iyo asigoo biyo xiranka sameynayo waa kaasa shubka sameynayo waa kaasa bari shubka alwaaxdi markuu sameeyo dadii iyo shubki wuxuu ku shubay iyo barihi oo kana kala qaadayo tubada biyo keenaysay ayaa hadda sameynaya waa kaasa meeshaas waxa naqaysaa biyo xoog leh ka soo baxaan oo marka waxa waaye cajiib waay marka biyo xiranada la sameynayo macnaha si hadda fiirso dawladaha ay sameeyaan kulliye dhaqaale iyo waxa ku sameeyay sida Itoobiya oo kale biyo xiranka ay sameeysay wadiga meel biyo xiranka sameeysay marka ninkan waxa waaye arrinta sameynaa waa arrin cajiib oo kaligiis diid meeliyo dhaxdigay marka waxa waa biyaan xoog ku socdaan iyo diid lamada ku jirto waxa waaye koronto ay qadalanaya halkaas leerkii wixii fiilooyinka meesha hawaaye marka caadi u shaqeynaa kaasa marka waxa waaye biyo xiranada la sameynayo horta aad ugu fududahay ninkan sida uu sameeyay haddii la raaco waa kaasa biyo xoog la meesha ka soo baxaya marka kulli aniga Soomaaliya danahay waa sameysan karnaa biyo xiran waxyaalahaas waxa ka sameyn karnaa badda soo